taageerayaasha xisbiga isbeddeldoonka waddan iyo degmada xidhxidh ee gobolka Sool ayaa maanta soo bandhigay taageeraha ay u hayaan xisbiga isbeddeldoonka wadani waxaana halkaasi kala qayb galay taageerayaashaasi isku soo baxaasi weyn gudoomiyaha xisbiga waddan iyo degmada xidhxidh ee gobolka Sool iyagoo shaariicada waaweyn ee deegaankaasi lagu soo dhexmaray iyagoo watay calanka muuqa dheer ee xisbiga isbeddeldoonka wadani sidoo kalena ku dhawaaqayay erayo ay ku taageersan yihiin xisbiga isbeddeldoonka wadani iyagoo sheegay in codkooda iyo cuudooda ay ku taageerayaan xisbiga waddan haliyay degamba duruufaha shacbiga la dabaalan karee codkaaga ku dooro wadani codkaaga ku dooro wadani codkaaga ku dooro wadani haliyay degamba duruufaha shacbiga la dabaalan karee oo ka tirsan gobolka Laascaanood dadweynaha maanta isku soo baxay xisbiga wadani oo ololihiisii iyo dabaaldegiisii iyo cuudiisii maanta soo bandhigay xisbiga kulmiyana uu iskaga qaxay markuu cuudiisii xisbiga kulmiye arkay xisbiga wadani arkay waxaan leenahay xisbiga wadani uu guuleysanaya guushiisina way caday doorashadana uu helaya waxaan leeyahay kulmiye dekoraasi iska si diyaariyaan dadka xil jooga kulmiye oo ololay waxaan leenahay wadaadar waa la idigu rafacayay iska garqaato oo waxaan leeyahay iska hambalyeeya bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la doonayaa wax run in lagu hadlo xisbiga wadani xalaasha ahaa waa kii runta ahaa waa kii daacadda inoo horseedayey dhiigmarihii ninkii dhiigga ku faanayey waynu ka tagnay waynu ogaanay isagoo aanan soo gaadhin baynu ka shakinay waxaynu u baahannahay maanta xisbiga cusub wadani in dadku intuu leeyahay wax arko raaco waana raacsannahay haddaanu nahay reer xidhxidh waanu raacnay waa ku kalsoonahay hal maanta isku soo bannaan baxnay degmada xidhxidh awoodeedii laxaad ka lahayd xisbiga wadani oo nabadgeliyo ugu soo bannaan baxay awooddiisina muujiyey wadani waa wadaniga dhabta allow dhowr baanu leenahay waxay tidhaahdaa adoo doog arkaya lama taga abaar ninkan kulmi ninka leeyahay muuse biixi annagaan aqoon u leh anaan u leh annaga waa shaqayn jirnay annagaa sanakiis lahaan jirnay wallaahi koo ma istaahilo iskaali hadda wadii sheegayaa waxaanu leenahay muuse biixi iyo ciidankiisa iyo kulmiye waynu garanaynaa wuxuu yidhi baa la yidhi markii laga hadlayey shirkii caynabee hore baa la yidhi sool iyo sanaag iyo cayn baa la soo qaaday wuxuu yidhi ninkii ka hadlaa sool iyo sanaag iyo cayn waa dameer baktiyey warnakaasaynu raacnaa waxaanu taageersannahay oo si cad u taageersannahay xisbiga la yahdo wadani waxba naguma darsan ninaan wax nagu darsanna waxba ku darsan mayno maanta waxaanu taageersannahay u soo baxnay oo doonayna codkayaga inaanu siino haddaanu nahay reer xidhxidh wadani hadaba kow hadday noqoto koobalay waa wadani laba hadday noqoto laba labku waa wadani saddex hadday noqoto sirhaayeenku waa wadani oo hadda aan ka imi hadeer aan ku jiray muddo fog oo ka imi kulmiye ka soo digarogtay waxaan uga soo digarogtay inay qaylo inay shoobaro inay suuqyadii xidhaan in annagii la yidhaahdo kaararkii dumarkii ka soo gura oo magaalada ku wareega annaguna waanu diidnay kaarkiina keena kaarka waxaa la geynayaa xisbiga kulmiye waanu diidnay kaarka iyaga baanu ku diidnay markaanu aragnay wuxuu u wado iyo khasaaraha uu dadku ku wado waanu ka diidnay haddana waxaan ka soo digarogtay kulmiye waxaan joogaa wadani bismillaahir rahmaanir rahiim annagoo ah dhalinyarada isboortiga deegaanka xidhxidh waxaanu taageersannahay xisbiga wadani annagoo ah dhalinyaradii haweenkii odayaashii oo isku duuban waxaanu maanta halkaas ugu soo baxnay inaannu taageerada cudud ee aanu hayno xisbiga wadani inaannu bartan isugu nimaanno markaa xisbiga kulmiye waxaynu leenahay bedeluu
waxba inooma qaban marka maanta codkeenna kaarkaynu haysano ayaynu ku bedeli karnaa gacanteenna maalinta bishu ay tahay 13 waa maxamuud aadan askar maxamuud guray Soomaaliya TV degmada xidhxidh ee gobolka Sool